maalmo ka hor kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ayaa fuliyay mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa oo ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kaas oo ilaa hadda galaaftay nolosha in ka badan 120 qof dhaawacuna boqolaal yahay sida dawladdu ay warisay. Hadda waxaa soo baxaya macluumaadyo ku wajahan qaraxan ogaanshaha hay'adaha amniga iyo xogo dheeraad oo ku aadan digniino dhanka ammaanka oo la hayay. Agoosto sanadkan kooxda argagixisada ayaa weerartay hotelka Xayaat ee Muqdisho. dawladdu waxa ay sheegtay in la xisaabtan ka dambeyn doono weerarkaas iyadoo aan weerarkii Xayaat cid loo qaban guddi baarida loo saarin ehelada dadkii waxyeeloobay iyo shacabka Soomaaliyeedna aan dhacdadaasi waxba lala wadaagin cidda mas'uuliyadda haysana aan lala xisaabtamin. hadalka kaliya ee dawladda laga hayana ay tahay tacsi ay madaxdu jeediyeen waxa dhacdadaasi ka dib labeeyay qaraxii Soobel 2 oo ahaa aafad dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba maxaan ogaanay weerarkii Soobel 2 kadib sida ay goobjoogayaal noo sheegeen agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad kulankii aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada waxa uu ka sheegay inuu hore u sii ogaa qaraxa oo uu ku sheegay in hadafkiisu markii hore uu ahaa Madiina Gate garoonka diyaaradaha ee aadan cadde albaab ka mid ah kuwa laga galo deetana markii dambe ee loo weeciyay wasaaradda waxbarashada ay digniinteeda hayeen iyadoo waliba loogaa in maalin ka hor ilaa maalintii qaraxa duulimaadyada diyaaradaha ee taga caasimadda Soomaaliya kuwa caalamiga ay safaradooda baajiyeen duulimaadka Ethiopian Airlinesna uu galinkii dambe tagay laakiin la baajiyay kii subaxnimadii hore sida ila sugan aan ka helnay dhowr maalmood ka hor Niisa ayaa u sheegtay madaxda wasaaradda in xubno ka mid ah kooxdan argagixisada ay ka shaqeeyaan xarunta dhexe ee wasaaradda laakiin lama sheegin haybtooda cidna lama qaban. 2 wasiiradu waxay aad u yareeyeen imaanshaha xarunta iyadoo ay aad u koobeen intii xilka ay la wareegeen shaqaalaha wax macluumaad oo la xiriir khatarta lama socodsiin. kaamirooyinka wax duuba ee loo yaqaan CCTV-ga ee wasaaradda ku xirnaa waxa la xaqiijiyay in maalin ka hor la damiyay iyadoo xubno kala duwan oo goobtan maamulayana la sheegay in fasax la siiyay iyadoo ilaa iyo hadda macluumaadkan ay yihiin kuwa is soo taraya. waxa kaloo la xaqiijiyay in xaasaska mid ka mid ah kooxaha argagixiso laga shaqaalaysiiyay wasaaradda iyadoo oo la xaqiijiyay inay degan yihiin goob ku dhow xarunta wasaaradda. baaritaan hay'adaha amnigu ay hore ugu sameeyeenna waxay sheegeen in digniin kala duwan laga bixiyay iyadoo ay jiraan dhammaan dhacdooyinkan kala duwan ee ilaa hadda la diiwaan galiyay. haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in la xisaabtan ka dambeyn doono. waxaa si weyn la isku weydiinayaa warka ra'iisul wasaaruhu ma waxa uu raaci doonaa weerarkii Xayaat mase isla xisaabtan ayaa imaan doona ku wajahan hay'adaha ammaanka. qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa tabinaya hadda inay jiraan isku milan hay'adaha ammaanka iyo kooxaha argagixisada. ma ogtahay application-ka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta. Baysi waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika. haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka.